هذا فرحسنا ما explain قريب كريسة أو فرحسنا وأحمد برهان محمد وإيجالية الصوماليات كسو دوينayaan garoonka dayuuradaha ee magaalada Minneapolis kadib markii uu ku soo guuleystay tartankii Quraanka Kariimka ah ee ka dhacay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta. Axmed Burhaan ayaa tartankaasi ka soo qayb galeen in ka badan 100 dal waxa uu ka galay kaalinta koowaad waxaana isagoo VOA la hadlayay uu sheegay inay guushiisa dad badan gacan ka geysteen. إلهي سبحانه وتعالى كم هاد علينا والديتي وماما بيد الجري صبح يا هبين يو معلكي الشيخ عبد الناصر محمد فارح يو معلميته وأبو بكر الصديق يا الشيخ حسن أحمد أبو نار وكم دها شيوخ وآدي عاوية. أحمد برهان ayaa qoyskiisu waxay Mareykanka yimaadeen isagoo hal sano jira waxa uuna barashada Quraanka ka bilaabay dugsiga Quraanka ee masaajidka Abu Bakar Sidiq. أحمد inkastoo uu rumaysnaa inuu kaalin wanaagsan ka gali karo tartanka haddana ma aanu hubin inuu kaalinta koowaad ku soo baxayo. nasiib waay soo ma ganaysa wax heli doonto soo طبعا ma ganayna wax heli doono waa ku kalsoonaa inaan heli doono top 5 ka ku soo bixista kaalinta koowaad ee tartanka Quraanka Kariimka ayaa abaalmarin ay wadamada Islaamku aad ugu tartamaan hanashadeeda waxaana tartamayaasha ay muddo dheer isu soo diyaarinayeen sida ay tartankaasi ugu guuleysan lahaayeen. أحمد برهان أيانا مدة 5 bilood u soo alamiiteynayay tartanka Quraanka Dubai. Quraan badan murajacinayay 5 juz maalin walba chance walba helo iskuulada ku jiro basada ku jiro Quraanka akhrisanay. أحمد برهان ayaa guushiisa Quraanka waxa uu ku tilmaamay mid u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Guul kanayta Mareykanka kalimaha guul waa maaha laakiin Soomaalida meel way joogaan u tahay. guusha Axmed Burhaan ayaa meesha ka saaraysa tuhunka ah in ilmaha Mareykanka ku dhashay amaba ku koray aanay dalkani si wanaagsan Quraanka ugu baran karin. Burhaan Axmed oo ah aabaha guuleystaha ayaa qaba in Quraanka meel kasta lagu baran karo guusha wiilkiisana ay keentay iskaashiga qoyska iyo macallimiinta dugsiga Quraanka ee uu ka soo baxay. والله أنا كل ودلال ودتك فاهم أنا وفاهم هنا ودلال دتك كله معناها دكسي ودتك إذا مركب معلميته أنا ويلاد الآلين. إمامك مساجدك أبو بكر الصديق الشيخ عبد الرزاق حاشي وكمد هاب الشدي أحمد برهان قرونك وجهر تكتي أيها جوش أحمد قتل مع ميميد وسوهيتي رمان بمسلمين تمريكنك سلامركا أنا أي موجين يسو إنجالية الصومالية دي جارتي هدف كيها إن يسوه يسو جول سمعة وسوجيد مريكنك. أرضيجا ودرجة أجاري مريكنك إلا ما أنت ورباهين تمريكنك وكفانا يا أحمد. ما دام أحمد كفانا يان إن كوميونتي جانو أن نقول كوميونتي مريكنك كفانان أيام ربني إن جارو ما أنت وان جاري وان حقيقي وحنا رجينا إن وضن كمريكنك وأركو وناج دين الإسلامك وناج ضد كمسلمين تأه iyo qiimaha qofka dhalinyarada oo muslimka Mareykanka degan uu leeyahay inuu sanahan qof iska nolosha ka dhacsan caruurteenu ma aha caruurteenu waa caruurta tusaalayaasha noqon kara oo Mareykanka maanta ay ku faantamayaan weey. Axmed Burhaan oo galaya sanadkii ugu dambeeyay waxbarashada dugsiga sare ayaa waxa uu qorsheenayaa inuu barto cilmiga caafimaadka oo dhakhtar noqdo isla markaana uu noqdo dhakhtar qaari ah oo Quraankan aad u xafidsan. sidoo kalena uu tusaale wanaagsan u noqdo dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku koraya. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.